بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan kusoo jirnay kitaabkii khariidatu lbahiya ee uu qoray alcalaama asheekh axmed addardiiri ee caqiidada islaamka, gaar ahaan calaa madhab alimaam abilxasan al ashcariy. isagii ayaan halkii kasii wadaynaa. wuxuu ihi sheekhu marka raxmatullaahi tacaala calayhi: wasif jamiica arusli bilamaana wasidqi waltabliiqi walfataana wayastaxiilu diduhaa calayhimu wajaa-izun kalakli fii xaqihimu irsaaluhum tafadulu waraxma lilcaalamiina jala muuli nicma. waxaan kusoo jirnay allahuma salli calaa muxamed. sida la ogyahay fanniga caqiidada culimadu waxay u qaybiyaan 3 qaybood: ilaahiyaad, nubuwaad iyo samciyaad. qeybtii hore ilaahiyaad oo sifaadka ilaahay u waajibay, sifaadka mustaxiilka ka ah iyo jaa-iska, waan soo dhammaynay. waxaan bilaabaynaa hadda nubuwaadkii oo ku saabsanaa ambiyada ayaan halkan ka bilaabaynaa. wuxuu yihi sheekhu: wasif sifee qofka mukalafka ahow jamiica rusli rususha dhammaanteed waxaad ku sifaysaa bilamaanati amaano. yani sifaad ay rusushu leeyihiin ayaa jira. sifada ugu horeysa waxa weeye oo in la caqiideeya ay waajib tahay inay ku sifaysan yihiin amaana. amaano marka maxaa la yidhaahdaa? amaano waxa weeye xifdullaahi tacaala bawaatinahum wa daahirahum min atalabusi bimanhiyin canhu walow nahya karaahatin walow xaala dufuulati. ilaahay wuxuu ka ilaaliyey amaano. nabiya rususha ilaahay amaana u waajibtay. macnaheedu waxa weeye ilaahay baa daahir iyo baatinba wuxuu ka ilaaliyey shay uu ka reebay inay sameeyaan, walow karaahaba ha noqde. xataa iyagoo yaryar, xitaa iskada iyagoo qaangaadh ah inay sameeyaan ayaa laga ilaaliyey. waxaa la yidhaha magac kalena way leedahay amaanadu oo alcisma. cismana waa la yidhaha dhowrid oo ilaahay uu dhowray, taana iyadana waa la yidhaha. marka in la caqiideeyo inay macsuumiin ay yihiin oo ilaahay uu dhowray shay oo waajiba weeye. marka waa sifada ugu horeysay ay leeyihiin. maxaa u daliila caqliyan? waxaa u daliila caqliyan in rusushu ay sifada ay leeyihiin oy waajib tahay in la caqiideeyo. haddii ay shay xaaraama ay sameyn lahaayeen, dee waxay noqon lahayd khayaano. haddii shay xaaraama ama shay karaha ay sameyn lahaayeen, waxaa ka laasimi lahaa arintaa iyada ah dee iyaga inaan ku adeecno. ilan inaga waxaa layna faray waxay sameeyaan inaan sameyno. marka dee meeshii waxaa ka dhalan lahayd deedna daaco in lagu adeeco waxa ay sameeyeen oo xaaraamta ah ama karaahada ah. taas yani ayaa ka dhalan lahayd. saa darteed meesha waxaa laga qaadanayaa amaano. taasina macnaheedu dee waxay keenaysaa maadaama ilaahay qowlkooda iyo ficilkoodaba inaan ku dayano layna faray, waxyaabaha khaaska ee khasaaistay gooni u amooyeen ayaa de xaaraam sameeyaan, dee inaan sameyno ayaa de yaa lagaga dayan lahaa. marka dee meeshii waxaa ka dhalan lahayd xaaraam oo la sameeyo. marka xaaraam ilaahay wuu ka ilaaliyey. bilamaana ku sifee rususha, wasidqi runna ku sifee. wax allaala wixii ay yidhaahdaan inay run ku sheegayaan. risaaladan ay sheegteen oo ilaahay inuu soo diray oo inay dadka axkaamtiisa gaadhsiiyaan uu usoo diray inay run ku sheegayaan, in la caqiideeyo ayaa waajiba. marka runta waxaa la yidhaha mudaabaqatu xukmil khabari lilwaaqic. yacni waxaan la sheegaya inuu waaqica sida dhabta waafaqsan yahay. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi: wamaa yandiqu cani ilhawaa. yani hawo kuma hadlo, in huwa ilaa waxyun yuuxaa. saa darteed run baa u waajibtay rususha ilaahay. haddii beentu ay ku banaanaan lahayd, dee waxaa ka dhalan lahayd ilaahay warkiisiioo been noqday. maxaa yeelay rususha ilaahay wuu ayiday oo wuxuu ku ayiday mucjizo
oo markay dhaheen rasuul ilaahay baan dhaho rasuul walba ummadiisa uu ku yidhi waa la isoo diray eebaa isoo diray, maxaa u daliila markii la yidhi mucjizo ayuu la yimid. mucjizaduna waxay ka dhigan tahay eebuu yidhi sadaqa cabdii fii kulli maa yuballiqu canii, addoonkaygu run buu sheegay wax kastoo uu aniga xaggayga uu ka gaadhsiinayo. markaa deedna mucjizadaas hadday ay been sheegaan dee waxaa ka dhalan lahayd dee beentaas hadalka ilaahay oo been noqday ayaa ka dhalan lahayd. taana dee ilaahay mustaxiil buu ka yahay, iyaguna mustaxiil bay ka yihiin been. marka run ayaa waajibtay. marka sheekh wuxuu ku yidhi bil amaana ku sifee wasidqi runna ku sifee rususha ilaahay, labadaa sifaba iyaga ayaa iskale. marka maadaama mucjizada aan soo hadal qaadnay, mucjizo maxaa la yidhaahdaa? mucjizo waxaa la yidhaahdaa amrun khaariqun lilcaada, arrin oo caadada qaradhinaysa, dilaacinaysa, maqruunun bitaxadii maca cadami lmucaarada, maqruunun bitaxadii oo taxadina wadata. taxadi waxa weeyaan iyadoo kala sameeya haddaad awoodaan. amrun khaariqun lilcaadati maqruunun bitaxadii, waxaa weeye haddaad awoodaan iyadoo kala sameeya, maca cadami lmucaarada oo la awoodi waayana in wixii oo kale la sameeyo. taas ayaa mucjizo la yidhaha. marka wuxuu noqon karaa amrun markaan nidhi, amarkaasi ama ficil la sameeyo ama wax laga tago. oo mathalan nebi ibraahim markii dabkii lagu tuuray dee dabkii wuu gubi waayey, marka taasi waxa weeye waa mucjizo, oo markaa waana tarki ee dee ficil ma ah. maqruunun bitaxadii markaan nidhina waxaa baxay karaamada oo awliyada. marka karaamadu dee iyadoo maqruunun bitaxadii ma aha oo wakaase bal iyadoo kala sameeya dee awliyadu ma yidhaahdaan. awliyadu maxaa weeye karaamadu waxaa weeye amrun khaariqun lilcaada calaa yadi daahiri salaax, qof oo wanaag uu ka muuqdo iyo khayr uu ka muuqdo oo shay khaariqulcaada uu ka dhaco ayaa la yidhaahdaa. laakiin taxadi lama socdo, wakaas iyadoo kala sameeya taa iyado lama socdo. marka laysku soo duuduubo culimmadu waxay yidhaahdaan khaariqulcaadaha waa 6 shay. 6 shay baa caadada qarariya. hadduu nabi ka dhaco mucjiza la yidhaah. intuuna nabigu weli nabi noqonin haddii uu ka dhacana irhaasaad ama irhaasaad gogol dhig inuu nabi yahay usii gogol dhigaysa. oo nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam daruurtii hadhaysay iyo intii weli aan qur-aanka lagu soo dejinin kuwaas ayaa ka mid a. ta saddexaad waxa weeyaan oo mucjizada ah oo caadada qararisa karaamada awliyada, oo iyadana waa addoon wanaagsan oo salaax lagu yaqaano wixii ka dhaca. ta afraad waxa weeyaan waxa la yidhaha macuuna, qof caamo ah oo iska caadi oo xataa cibaado badan iyo waxba iyo cilmi aan midna lagu ogeyn ayaa shay khaariqulcaada ka dhacay oo qof muslima ah. kaana waxaa la yidhaha macuuna ayaa iyadana culimadu ku magacaabaan, kaalmo ilaahay oo kale. haddii uu faasiq uu ka dhaco shayga khaariqulcaadada ah, qof faasiq ah haddii uu ka dhaco laba midun buu noqonayaa. qofka ama faasiq ama gaal ayuu ka dhacay shay khaariqulcaada ah, laba mid buu noqonayaa. wuxuu doonayay inuu yahay, wuxuu doonaya hadduu yahay istidraaj baa la yidhaha, useeta dheerayn. wuxuuna doonaynin hadduu yahayna waxaa la yidhaha ihaano. oo mathalan gaal oo kale ama faasiq oo kale ayaa waxaa yidhi qofka maan ku tufayaayo wuu bogsanayaa, hadduu kacayaa. tufuuduu yidhiba naftiibaa ka raacdo uu dhintay. taa ihaana la yidhaha. marka wuxuuna doonaynin hadduu noqdo ihaana la yidhaha, wuxuu doonaya hadduu noqdona istidraaj, seeta dheerayn ayaa la yidhaha. idan waa 6 qaybood weeyaan, 6daa wey. waxaa nabiga ka dhaca mucjizo, intuuna nabi noqonin wixii ka dhaca irhaasaad, awliyada wixii ka dhaca karaamo, dadka caamada ee caadiga wixii ka dhaca macuuno, faasiqa ama gaalka wixii ka dhaca waxaa la yidhaha istidraaj ama ihaano. marka 6 bay noqonayaan, 6daasiba khaariqulcaado ayay noqdaan. saa darteed culimada qaarkood hal shicri bay ku tiriyeenoo waxay dhaheen idaa maa ra'ayta alamra yakhriqu caadatan famucjizatun in min nabiyin lanaa sadar
وإن بان منه قبل وصف النبوة فالإرهاس سمه تتبع القوم في الأثر. وإن جاء يوما من ولي فإنه الكرام في التحقيق عند ذوي النظر. وإن كان من بعض العوام صدوره فكنوه حقا بالمعونة واشتهر. ومن فاسق إن كان وفق مراده يسمى بالاستدراج فيما قد استقر. وإلا فيدعى بالإهانة عندهم وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر. أيها الشيخ marka beydadkaas sidaa ka muuqata wuxuu yidhi idaa maa ra'ayta alamra arrinta haddaad aragto yakhriqu caadatan iyadoo caadada qararinaysa fa mucjizatun weeye in min nabiyin lanaa sadar nabi inoo sugnaaday haddii ay kasoo fusho waa mucjizo. wain baana minhu qabla wasfi nubuwatin intaan nabinimo lagu sifaynin haddii waxani uu ka muuqdo fal irhaasa samih waxaad ku magacowdaa gogoldhig tatbaci lqowma qoomkaad raacaysaa fil athar wixii lasoo guuriyey lasoo naqliyey qoomka culimada ujeeda. wain jaaa yowman maalin hadduu khaariqulcaadihi yimaado min waliyin weli fa inahu isagoo alkaraama ayaa la yidhaha fi taxqiiqi sida la sugay cinda dawi nadar cinda asxaabi nadar dadka yani fikirka saliimka leh culimada ah agtooda yani karaamu ka yahay. wain kaana min bacdi alcawaam dadka caamada ah barhkood hadduu ka dhaco wixii wain kaana min bacdi alcawaami suduuruhu yani hadduu kasoo fulo caamada barhkeed fakanuuhu waxay ku magacaabeen xaqan bilmacuuna macuunay ku magacaabeen dhab ahaan ugu magacaabeen washtahara saasuuna caan ku noqday. wa min faasiqin hadduu kasoo fulo in kaana hadduu yahay wifqi muraadihi suu doonayay yusamaa bilistidraaj seeta dheereyn baa lagu magacaaba fiimaa qad istaqar sida sugnaata. wa ilaa suuna doonaynin hadday noqoto kasoo horjeedkiisa fayudcaa bilihaana ihaana lagu magacaabaa cindahum cinda alculamaa. waqad tamat ilaqsaamu qaybihii way taam noqdeen cinda aladii ikhtabar duulka oo yani wax ikhtibaariyo wax jirrabay bimacnaa qofka oo cilmiga le agtiisa qaybihii yani way taam noqdeen buru sheekhu. marka 6daa qaybood waxaa la yidhaahdaa khaariqulcaada. markaasaa waxaa la yidhi awa sixirki isagu meesha laguma sheegin khaariqulcaada miyuun ahayn. markaas culimadii waxay dhahan sixirku khaariqulcaada ma aha maxaa yeele waa wax lala iman karo maxaa yeele waa wax la barto cilmi ah. marka qofku hadduu barto dadka yaqaana yani waxa weeye waa wax qofkan wuxuu la yimid oo kale ay la iman karaan ee ma aha wax khaariqulcaado oo caadada qararinaya yani ma aha waa cilmi la barto wey. allahuma salli calaa muxamed wacala marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabi muxamed ilaahay baa soo diray yani waxaa loo soo diray risaaladiisu waa caam jinni iyo insiba waa loo soo diray bal khalqigoo dhan yani ayaa loo soo diray. marka mucjizooyinkiisa midda ugu weyna dee waa qur-aanka oo ilaahay kitaabkan qur-aanka ayuu mucjizo u siiyey oo carabtii ay la iman waayeen maadaama luqadda carabta ay yaqiineen xagga fasaaxada iyo xagga balaaqadan ay dad oo kufaana ay ahaayeen nabigana cadaawad ay u qaadeen hadday awoodaan qur-aanka oo kale inay la yimaadaan mayna u baahdeen nabiga inay la dagaalamaan oo ay maaragta ay la culoobaan maxay samayn lahaayeen war waxaad la timid oo kale anagu waan la imanayna waaka anaguba waan samaynay saasay odhan lahayn. laakiin markay awoodi waayeen waa yagii dee dagaal la qaabilay. marka taasaa ku tusinaysa oo ilaahay waa ka yidhi qul low ijtamacat alinsu waaljinu calaa an ya'tuu bimithli hada alqur'aani laa ya'tuuna bimithlihi walow kaana bacduhum libacdin dahiiraa. haddii jin iyo insi isu tagaan qur-aankan oo kale inay la yimaadaan lama iman karaan walow barhkood barhka kale haba caawiye haba u kaalmeeye. markaas haddana waxaa la yidhi bicashri suwarin la imaad way la iman waayeen haddana bisuuratin la imaad way la iman waayeen oo suuradda yani suuradaha gaagaaban xitaa yani ku rumoobaysaa. marka mucjizooyinka nabiga waxaa ugu weynaa taas yani ayaa ugu weynaa. nabiyada kalena marka dee qur-aanka inoo sheegay inay nebi yihiin. nebi maxamed dee mucjizadii baa caddaysay inuu nabi ilaahay yahay. nabiyada kalena maxaa inoo sheegay dee qur-aanka ilaahay baa inoo sheegay in ay rusul yihiin yani ayaa inoo sheegay. markaasaa sheekhu wuxuu yihi watabliiqi wasif sifee
rususha waxaad ku sifaysaa wasif jamiica arusli bilamaana, amaano ku tilmaan, wasidqi run iyo watabliiqi gaadhsiin. axkaamtii ilaahay inay gaadhsiiyaan la faray dadka inay gaadhsiiyeen. waxaa jira wax aan la farin dadka inay gaadhsiiyaan, iyo wax la faray inay qariyaan, iyo waxaan maaragtay qaybo, yani saas ayuu ka leeyahay. marka maxay gaadhsiiyeen dadka? wixii la faray inay gaadhsiiyaan ayay gaadhsiiyeen. oo ilaahay qur-aanka uu ku yidhi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu. yani gaadhsii wixii lagu soo dejiyey ee rabbigaa xaggiisa ka gaadhsii dadka ayaa nabiga la yidhi. marka amarkaasina waa amar oo waajiba weeye. marka rususha maxay sifaadkooda ka mid ah? atabliiq. wixii nabiga u sugnaaday rusushana wuu u sugnaado. qur-aanka waxaa lagu yidhi rusulan mubashiriina wa mundiriin. rusul ayuu ilaahay diray bishaaraynayoo digaya. marka dee digidda iyo bishaaraduna maxay ku iman kartaa? dee inay wixii dadka gaadhsiiyaan ayay ku iman kartaa. wuxuu yihi sheekhu walfadaana, caqli iyo dhug yacna ku tilmaan. wasif jamiica arusli bilamaanati wasidqi watabliiqi walfadaanati. sifada afraad ay ku sifoobeen rususha ilaahay waa alfadaana, dhug, kuwa caqli badan inay yihiin oo ciddii ay la doodaan yacno aamusiinaya. marka rasuulku inuu noqdo midoo muqafala, yani iska dansan, ama midoo beliida oon fahmo lahayn, yani uu ka nasahan yahay. waa ka mustaxiil rususha ilaahay. maxaa yeeley inay dad la doodaan, oy dad qanciyaan, oy dad wax gaadhsiiyaan ayaa loo diray, oo lagu daydo ficilkooda iyo qowlkoodana lagu diro ayaa loo diray. marka dee ma noqon karaano arrintaa way ka nasahan yihiin. markaasaa sheekhu wuxuu yidhi afartaa sifa way ku sifoobeen oo kala ah sidii hadda aynu sheegnay. allahuma salli calaa muxamed. ammaano iyo run iyo gaadhsiin iyo dhug iyo caqli. afartaa yani waa afar sifo: alamaana, asidqi, watabliiq, walfadaana. markaasuu sheekhu wuxuu sheegayaa sifaadka mustaxiilka ka. wayastaxiilu waxaa ka mustaxiila rususha ilaahay diduhaa, afartaa sifeen sheegnay kasoo horjeedkooda. afartaa waajiba calayhim dushooda yani ayay ka mustaxiil tahay. oo masalan khiyaano, inay khiyaano sameeyaan oo shay ilaahay ka xarimay ay ku kacaan, yani waa ka mustaxiil. maxaa yeele waxay samaynayaan oo dhan ama waa wax waajiba, ama waa wax sunno ah, ama waa wax mubaaxoo markaa ay jideynayaan oo dadka ay u jideynayaan. binisbati ilayhi mubaax ma noqdaba, laakiin dadka ay u jideynayaan yani inuu mubaax yahay. saa darteed ficilkoodu male xaaraan iyo karaaho midna rususha kama dhaco. markuu labadaa dhameeyey sheekhu oo uu sheegay wixii mustaxiilka ka aha, yidhi wayastaxiilu diduhaa calayhim, oo dee afar baa soo gelaysa. markii aynu nidhi rususha waxaa u waajibtay amaano, khiyaano yacna ayaa ka mustaxiila. run markaan nidhi been baa ka mustaxiila. gaadhsiin markaan nidhi qarin, sharcigii inay qariyaan baa ka mustaxiila. dhug markaan nidhi inay yihiin kuwa doqomo oon waxba garanaynin ayaa ka mustaxiila. markuu deedna sheekhu intaa sifaadkii u waajibay rususha iyo sifaadkii ka mustaxiilka ahaa uu dhameeyey, ayaa jaa-iskii haddana ayuu sheegaya. wuxuu yihi wajaa-izun, waxaa bannaan rususha xaqooda kal akli oo kale, cunidda oo kale. waxay ka dhigan tahay kullu caradin bashariyun laa yu-addii ilaa naqsin fii maraatibihim alcaliyati wadalika kal akli. marka kal aklidu waa tusaale. wajaa-izun waxaa bannaan kullu caradin, shay kastoo caradoo ku yimaada, bashariyun carad oo bashari oo bashariga bini aadamka loo nisbeeyey, kaasoo laa yu-addii aan gaadhsiinaynin ilaa naqsin fii maraatibihim, wax kastoo maraatibtooda darajadooda aan naqsi gaadhsiinaynin. wadalika kal akli, cunidii oo kale wey. in wax la cuno, in wax la cabo, in la seexdo, in la guursado, hargab yar oo kaliya inuu ku dhaco, ama xanuunada oo xunxun aan ahayn, taas yani waa jaa-is buu yiri fii xaqihim, rususha xaqooda kulligood. yani marka waxyaabahan ku dhacayo cudurada oo khafiifka ah ee jaa-iska, yani darajadooda ayuu kor qaadaya, ajrigooda ayuu sii weyneynayaa. midda kale waxaa laga helayaa tashriic inaga inoo jideynayaan oo waxyaabo ka dhacaya. midana ka soo qaad
sahwigii nabigu uu salaada sahwiyo kale dee waxaa ka dhalanaysa axkaam ayaa ka dhalanaysa. nabiga oo maradkiisoo kale markuu xanuunsado ee fadhiga ku tukado dee wuxuu inoo jidaynayaa in fadhiga lagu tukanayo markii bilficli iyo marka dagaalka lagu jiro oo kale salaatul khoofka oo kaliyo marka faa-iidooyinka yani ayaa ku jirta. iyo weliba dadku inay isku sabirsiiyaanoo marka laga sheekeeyo xanuunadii ku dhacay ambiyada iyo sidii dhibku usoo gaadhay dadku inay isku sabirsiiyaan oo yidhaahdaan dee rasuulka ilaahayba hadduu waxaa ku dhacay oo adiguna waa inaad ku sabarto waa sunno weeyaan inuu sidaa yani tasliyo inay dadkana yani u noqoto ayay jaa-is ugu tahay oo ay jaa-is ugu tahay. ayib markaasaa sheekhu wuxuu yihi irsaaluhum tafadulun waraxma lilcaalamiina jalla muuli nicma. irsaaluhum rususha diridoodu tafadulun wuxuu yihi sheekhu waa tafadul yani ixsaan ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu naxariis lilcaalamiina adduunka loo naxariisanayo ee waajib ma aha. ilaahay wax waajib ku ama jira. diridda rususha la diray tafadulun waraxma ilaahay baa nicmo ilaahayna siiye weeye raxma uu lilcaalamiina siiye laysa biwaajibin calayh wax ilaahay waajib ku ah yani ma jira wey. maxaa yeeley ilaahay waa alfaacilu lmukhtaar aladi laa xaraja calayhi walaa yus'alu camaa yafcal yani wuxuu samaynayana ilaahay lama weydiiyo. hadduu rusul diro iyo hadduun dirin labadaba isaga ayaa khiyaarkeeda leh. marka waxa weeye diridda uu diray waa fadli iyo raxmad ee waajib ma ah. halkaa marka maxaa la radinayaa allahuma salli calaa muxamed muxuu ku ishaarayaa halkaa iyadaa sheekhu muctasiladoo kale oo leh rususha in la dira yani waa waajib oo asalkoodii bay ku duldhisayaan oo ahaa wujuubu salaax calayhi tacaala. ilaahay waxaa waajib ku ah sida addoonka u wanaagsan inuu u yeelo asalkaasay ku duldhisayaan. marka ahlusunna waljamaca taa horeyna waan u radinay ilaahay wax waajib ku ah ma jiro waa raxmad iyo fadli yani weeyaan. marka kuwaasi markay sidaa yidhaahdeen waxaa kaloo tani ay radin ku tahay allahuma salli ala kuwa le dabiicada iyo cilada kuwa laazim kuwa aaminsan oo falaasafada sida Greek iyo wixii lamid oo falsafada aaminsan oo leh wax nabi iyo wax rasuul la yiraahdo ma jire wax cille iyo macluul la yiraahdaa jira. yani adduunkan eeba wuu jiraa markii eeba la helayna adduunkan baa iska samaysmay isagu ma samaynin. wuxuu hadda faacil oo ficilo uu samaynayo waxaan dhacaya wax isaga loo nisbayna ma aha. haddii loo nisbeeyana bilcilati baa loogu nisbayna bilfaacilu lmukhtaar ma aha. kuwa qaba kuwaana way radinaysaa rususha. waxay kaloo radinaysaa qolo la yidhaha sumniya iyo baraahima oo qaba maaragtay waa cabath rasuul yani in la diraba kuwaana iyagana way radinaysaa. jalla wuu weyn yahay buuri sheekhu muulin nicmati nicmada kii bixinaya. marka miimka waad godaysaa laamkana waad hoos dhigi. muulin nicmati mucdin nicmati nicmada kii bixinayay wuu weyn yahay buuri sheekh oo ilaahay ah. jalla wuu weyn yahay muulin nicmati nicmada oo nicmada waxaa kamid a rusushan uu inoo soo diray taa yacna ayaa kamid a. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.